Hi guys, meel baa joogtaan, welcome back, soo dhawaada. Magacaygu waa Max. Videoan waxaan uga hadli doonaa cryptocurrency-ga, sidoo kale waxaa xooga saari doonaa khaasatan price-ka Bitcoin, marxaladihiisa meesha uu marayo. Haddii aad markaas doonayso investment oo maalgelin wax badan oo la xiriira inaad online lacag ka samayso, iyo sidoo kale fursadaha markaas inaan kula wadaago haddaad jeceshahay oo igu soo kordha. Ma ogaani inaad la soo xiriirto barteeda Facebook haddaad si gooni ah u doonayso cryptocurrency Facebookan Max Future. Sidoo kalena ha iloobin markaas inaad videoan like saarto, sidoo kalena aad share gareyso. Haddii aad markaas channelka ku cusub tahayna hadda subscribe dheh. Guys, ha ma ogaani inaad markaas la socoto channelka. Okay, video markaan guda galno waa qaabka oo price-ka ama Bitcoin price-kiisa waqti xaadirka hadda la hadlayo oo February oo taariikhdan ay tahay 18. Bitcoin price-kiisa waa isbedelay, waxa uu tagay 5,313, waa 5,313. marka price Bitcoin waxaa ogaataa mar walba waa fluctuation waaye, waa isbedelaa. qiimahiisana waa volatile waaye, qiimo sugan ma ahan, waa isbedelaan. dadka la socday cryptocurrency-ga iyo sidoo kale Bitcoin around 3,000 4,000 meelahaas ay joogtay. hadda laakiin waxa waaye way isbedeshay oo waxay maraysaa price-kiisa inuu sare u kacay. Video aan ka sameeyey January 2018 kana wuxuu ahaa around 18,000 u ahaa. marka mar walba waa bedelaa, waa fluctuation waaye. marka videoan waxaan uga hadli doonaa Bitcoin price-kiisa. Cryptocurrency marka way badan yihiin. hadda waxaan joogaa suuqii oo CoinMarketCap-ka ah. marka cryptocurrency waxaa ka mid ah Bitcoin oo iyada cryptocurrency-ga ah, Ethereum iyo Litecoin ka mid ah. marka aan fiirino marka Bitcoin waxaa xooga saari doonaa price-kiisa, iyo waxaan kaloo sameyn doonaa price prediction ah in hadda waqti xaadirkan Bitcoin uu ugu socdo in the moon oo kor uu sii socdo price-kiisa oo u socdo 15,000 13,000 oo u socdo, maadaama hadda uu 13,000 uu yahay, 15,000 uu dhow yahay iyo 14,000 waa la rajeynaa. waayo marka aad fiiriso chartiga sidii uu ahaa ayaad ka fahmi kartaa inuu price-ka Bitcoin markaas uu hadda uu ku socdo kor oo u sii socdo. Okay, inta marxaladaha uu soo maro waaye. $1 markuu ahaa waa history marka la fiiriyo. aan fiirino down markaan ahay, markaan wuu soo kacsanaa soo kala down waxa waaye around waxa uu ahaa markaas waa 14,000. waa mid hadda la wadaaga waa asxaabta ogeen. korna wuxuu ahaa 2,500. hadda isla fiirino price waa kaas communication oo muuqdo ayaa isla socona. marka hoos oo aaday price-kiisa waa around 40,000 wuu kacay, wuxuu tagay ujeeda hadda waa ku ogeedeen 13,000 waqti xaadirka la hadlaa. sanad ka hor 2018 wuxuu ahaa 15,000 oo ka tagay 17,000 18,000. waa ujeeda flat waxay sii socotaa kor oo price Bitcoin waa in the moon kor oo aaday 13,000 16,000 14,000 16,000 15,000. waa ka meesha ugu dambeysay markaas uu tagay 18,000 uu tagay. kadib waxa waaye price waa isbedelay maadaama ay ku xiran tahay Bitcoin marka la joogo ama cryptocurrency demand iyo supply. hoos uu soo dhacay wuxuu tagay 18,000, wuxuu imaaday 17,000, wuxuu sii tagay 13,000 14,000. price-ku wuxuu sii aaday ilaa ka aragto ilaa uu tago down meesha qaybta ugu hooseysa ah 17,000. haddana sare uu sii kacay oo wuxuu imaaday around 11,000. okay 11,000. haddana price-kiisa hoos u dhacay, haddana sare u kacay oo 19,000. waa fluctuation waaye, waa isbedbedela price Bitcoin. okay intaa imaana marka ugu dambeyso kale meesha uu kasoo kacay, wuxuu kasoo kacay 30,000 3,000 oo ahaa round 5 months 6 months muddo soo ahaa oo kusoo tagay 4,000 oo imaaday. wuu ka tagay haddana price-ka wuxuu tagay waqti xaadirka hadii la wadaagaya ah 50,000. waxaa dareemay marka in Bitcoin in the moon ay tahay kor u sii socdo. waxaa ku muujinaya graafka ama history-ga wax walba sixi kara. waxaan ku ogeyn inta markuu joogay 16,000 oo ahaa 2018 bishii January
wuxuu tagay oo sida kugu muuqdo the moon oo tagay kor oo ah 17,000 markalena wuxuu u tagay meesha ugu sareyso ah 18,000 oo u dhawaaday inuu 20,000 bar bitcoin uu noqdo. kadib waxa waa hoos u soo dhacay wuxuu tagay $8,000 wuu kasii kacay haddana wuxuu tagay 70,000. hadda markaan kula hadlaayo wuxuu mar tagay oo hoos dan down usii tagay 3,000 for $4,000 ayuu haddana sar u kacay. hadda wuxuu joogaa $5,000 iyo $13 ayaa raacsan. marka waxaad dareemaysaa marka adoo historyga fiirinayo in price bitcoin in the moon oo kor usii socon doono. marka guys waa xilliga ugu fiican ugu faa'iidaysan karti inaad markaas aad iibsato inta markaas awoodaada karaankaaga ah bitcoin markaas aad haysanayso hadday tahay half a bitcoin oo bitcoin aad kari karto, haddii kale waxa waaye 1,000 oo kale inaa holding aad ku samayso ama investment aad ugu faa'iidaysato si oo bitcoin-kaaga u kaco. marka qaabkee marka invest ugu faa'iidaysan kartaa waxaa ugu faa'iidaysan kartaa inaa markaasi kambaniyada miningka sameeya oo hadda ku mid yahay Expert Asset. waa company legit ah waaye kaasoo aniga aan lacag ka sameeyey asxaabta markaas tiimkayga la dhisanay lacag ka sameeyeen oo aad daradhow aan facebookkayga la wadaagay. guys waxaa ka mid ah dadka markaas ka faa'iiday oo tiimkayga ka tirsan waa saaxiibkayga hadda ujeedaan Cabdalla Bara oo hadda jooga from UK. wuxuu dhigtay Expert Asset $1,000 ayuu dhigtay. waxa uuna ka sameeyey dakhli $1,000 markuu qofku dhigto wuxuu helaa maalintiiba $10. markuu helay marka wuxuu la baxay $700 iyo ka badan. haddana waxa waaye 1,000 si fiican ugu shaqeynayso maadaama maalintii markuu helayo $1,000 maadaama uu dhigtay maalintiiba $10 hela 5 maalmood marka waxaa helaysaa 5 times 10 waa $50. marka waxa waaye weekii per month adaa ku dhufsan kara guys. marka waxa waaye he is investing 1,000 withdrawal $700 oo mudan still waxa uu shaqeynaysa $1,000 working beautiful passive income. waa join oo kusoo biirta kartaa Expert Asset waa kambaniyada la shirkadeenayo waa kana ida proven ah $1,000 dhigtay wuxuuna ka sameeyey withdrawal $700 waxa waaye modern uu sameeyey $77 ayuu ka sameeyey modern oo withdrawal uu la baxay. marka guys waxa waaye waa passive income aad u wanaagsan oo sidoo kale anigu dakhli aan ka sameeyey asxaabtayda qaar ka mid ah ka sameeyeen. marka ha mogaanin oo ka mid yahay dadka markaasi passive income markaasi dakhliga joogtada ah ka sameeyey. guys marka waxa waaye ha mogaanin inaad markaas kusoo jangarayso haddii aad fursadan gaarka aad doonaysana insha Allah waa ila soo wadaagi kartaa ila soo xiriiri kartaa Facebook iyo Maci Fujar. guys bye bye.